بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن وناكسن داودياشana jecelnahay meel baad joogtaan si kasta aad inoo daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan warka warbaahinta Kaahiya Media qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah odayaasha soo xulaya xildhibaanada cusub ee maamul goboleedka Jubbaland oo maanta bilaabay xulista xildhibaanadaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ahna musharax ka tirsan maamulkaasi oo maanta qaatay warqadda isdiiwaangelinta musharaxnimo ee Jubbaland golaha aqalka sare ee Soomaaliya oo kulan ka yeelanaya akhrinta intiisa sharciyeedka caafimaadka oo hore u soo maray xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya mid ka mid ah madaxweynayaashii hore u soo maray dalka Koonfur Afrika oo urur hogaaminaya soona gaaray magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka xoogga qaybtiisa 12aad oo booqday ciidamo lagu tababarayo degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo maleeshiyaadkii dhawaan isku soo dhiibay ee deegaanada Galgaduud ka dhigaysa ciidamo qaramaysan akhbaaraadka dibadda aad ku daawan doontaan warka Kaahiya Media waxaa kamid ah nin Mareykan ah oo lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay Daacish oo maxkamad lagu soo taagay gudaha dalkaasi Mareykanka iyo cabsi xoogan oo qaramada midoobay waqtigan ay ka muujinayso in cudurka Ebola uu ka dilaaco koonfurta dalka Suudaan marka leh daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkan waa Kaahiya Media dad ku cusub tahay channelkan hamogaanin inaad saarto subscribe sidoo kale like aad dhahdo share aad la wadaagto saaxiibada ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo intii hore ka faahfaahsan aynu ku bilownay odayaasha soo xulaya xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta bilaabay xulista xildhibaanadaasi odayaashan oo hore loo tababaray isla markaana tababaro kala duwan qaatay ayaa maanta waxay ugu dambeyn bilaabeen inay soo xulaan xildhibaanada soo dooranaya madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo hore guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland ay u sheegeen in odayaasha dhaqanka looga baahan yahay in ay soo xulaan 3 ruux oo u noqonaysa xildhibaan beel walba isla markaana saddexdaasi midkood ay la bixi doonaan guddiga ayaa waxay maanta ugu dambeyn bilaabeen shaqooyinkooda waxay sheegeen in kaliya 2 xubnood ay ka maqan tahay kuwaas oo iyagana codsiyo kala duwan soo gudbistay intooda kalena ay sii xuli doonaan xildhibaanada waxay si weyn maanta kaga howlgaleen magaalada Kismaayo iyo guud ahaan magaalooyinka uu ka kooban yahay dowlad goboleedkaasi Jubbaland iyagoo halkaasi ka wada soo xulista xildhibaanada waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhaliilo kala duwan uu lagu soo jeedinayo odayaashaas oo la sheegay inaysan ahayn kuwii dhaqanka ee dowlad goboleedka Jubbaland balse ay yihiin kuwa uu keensado hogaamiyaha tan ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta waxa uu qaatay warqadda isdiiwaangelinta musharaxnimo ee maamulkaasi Axmed Madoobe oo la kulmaya eedo kala duwan ayaa maanta qaatay warqadahaasi waxaana kadib la hadlay wafdiyaanada waxa uu sheegay in eedaha loo jeedinayo guud ahaan in waxba kama jiraan xaqna u leeyahay inuu soo xulo guddiga doorashooyinka Jubbaland waxa uu intaas ku daray in dadka eedeynaya ay yihiin kuwa wax ay doonaan sheegaya balse isagu uu haatan waajibaadkiisa qaran gutay sida daraadeedna odayaasha uu soo xilay kadibna odayaashu ay sameyn doonaan doorashada dowlad goboleedka Jubbaland ka dhici doonta guddiga doorashooyinka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay soo gudbiyay shuruudaha looga baahan yahay musharaxiinta waxayna taasi qasab ka dhigtay in la kulmaan eedo kala duwan iyadoo musharaxiinta badankood ay sheegeen in ay tahay arrimaha ay soo saareen kuwa loogu xaglinayo musharax gaar ah oo sida la fahansan yahay kala jeedeen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo haatan ah hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland wali saaxiibayaal warka Kaahiya Media ayaa daawanaysan golaha aqalka sare ee Soomaaliya waxay maanta kulan caadi ah ka yeesheen hindisa sharciyeedka yaasha caafimaadka oo akhrinta ay mariyeen waxa la leeyahay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hore akhrinta u mariyay mihnadlayaasha caafimaadka waxaana maanta kulankooda caadiga ah dood kulul kaga yeelanaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya golaha aqalka sare kulankooda uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa haatan kulankooda wuxuu ka soconayaa xaruntooda iyadoo si weyn arintaas loo faaqiday marka ay 3 akhrin mariyaan ayay u gudbin doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo akhrinta rasmiga ah marin doona waxaana guud ahaan ay kaga hadli doonaan waxyaabaha ay sababayaan in ay dhibaato ku yimaadaan horey ayaa mihnadlayaasha caafimaadka sharcigooda waxa u soo gudbisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya dhanka kalena wafdi hogaaminaya madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika ayaa maanta soo gaaray caasimadda Muqdisho waxa si weyn magaalada caasimadda Muqdisho loogu soo dhaweeyay guddi sare oo ka tirsan ururka midowga Afrika iyadoo si weyn loogu soo dhaweeyay gudaha caasimadda Muqdisho wafdiga waxa hogaaminaya madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika mudane Themba Mbeki waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho aadan cadda ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Danjir Axmed Ciise Cawad iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan iyo xubno kale wafdiga ka socda ururka midowga Afrika ayaa intay ku sugan yihiin caasimadda Muqdisho waxa la filayaa in kulan ay la yeeshaan madaxda ugu sareysa dalka oo uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubnaha qaramada midoobay Soomaaliya gaar ahaan wakiilkooda James Iswaan
weli si rasmi ah looma oga sababta rasmiga ah ee u yimaadeen gudaha dalka Soomaaliya balse safarkooda wuxuu ku soo aadaya iyadoo hore u gaareen gudaha dalkaasi Kenya markaas ay la kulmeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi haweeneyda lagu magacaabo Monica Juma waxaa la aaminsan yahay inay kaalintooda ka qaadanayaan isku soo dhaweynta wadamada Kenya iyo Soomaaliya oo markan uu ka dhex qaraxsan yahay xiriir xun oo dhanka diblomaasiyadda ah ugu dambeyntiina taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu booqday ciidamo fara badan oo la tababaray isla markaana ku sugan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug taliyaha qaybta 12aad ayaa waxa uu booqday ciidamadan oo ku sugnaa degmada la yiraahdo Balanballe oo gobolka Galgaduud halkaas oo dhawaan la geeyay waxaana ciidamadaasi la geeyay kadib markii degmadaasi Balanballe ay ku soo noqnoqdeen dagaal beeleedyo xooggan oo ka dhacay muddooyinkii ugu dambeeyay taliyaha markaa halkaas gaaray ciidamada ayuu kula dardaarmay inay kaalintooda ka qaataan tababarkan ay si wanaagsan u qaataan isagoo kula dardaarmay in ay qayb ka qaataan xoreynta xarakada al-shabaab ee deegaanada Galmudug iyo guud ahaan gayiga Soomaalida dowlad goboleedka Galmudug muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya ayaa waxay ka waday qarameyn kala duwan oo lagu sameynayo ciidamada ka howlgala halkaasi saaxiibayaal warka warbaahinta Kaahiya Media ayaa daawanaysa akhbaraadka Soomaalida ayaan intaas kaga gudbeenay qodobada dibadda aad ku daawan doontaan warka Kaahiya Media waxa kamid ah nin u dhashay dalkaasi Mareykanka isla markaana la xiriirinaya inuu ka tirsan yahay Daesh ayaa maxkamad lagu soo taagay gudaha dalkaasi ninkan oo 42 jir isla markaana ka soo jeeda magaalada Brooklyn la yiraahdo dalka New York ayaa ku soo laabtay dhulka Mareykanka isagoo lagu eedeeyay inuu ku dagaalamayo kooxda Daesh isagoona ahaa rag meelaha qarsoon wax ku toogta ka hor intii uusan u dalaacin inuu noqdo amiir sida la sheegay eedeymaha ku dhanka ah Ruslan Matrovic ninka la yiraahdo ayaa la sheegay isla markaana soo shaabaxay Jimcadii maalin kadib markii ciidamada Mareykanka ee Suuriya ku wareejiyeen saraakiisha ammaanka ee Mareykanka haatan ayaa maxkamad lagu soo taagaya waxa uu noqday amiirka ISIS ee u qaabilsanaa intii ay dhisneed xariyo lagu tababaro isagoo halkaasna ka dhisay xariyo lagu tababaro ciidamada ku yaala gudaha dalkaasi Suuriya haatan maxkamadda ayaa la soo taagay waxaan la sheegay in sanado fara badan oo xabsiya lagu ridi doono guud ahaan saaxiibayaal qodobkaasi dibadda ayaa u dambeeyay war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaro ka daawanayeen Kaahiya Media waad ku maasantiin daawashadiina haddii aad channelkan ku cusub tahay mogaanin inaad saarto subscribe sidoo kale aad like dhahdo share na dhahdo saaxiibada si aad ula wadaagto saaxiibayaal waad ku maasantiin daawashadiina tan ay kulantay dambana amaana Allah